tani waa qaarada toddobada ah ee Soomaaliya 3 maalmood ka hor waxay shirkadda Google ka maalkeeda ku dhacay isbedel ay mas'uul ka tahay shirkadda Google iyada oo xariiqadan go'aan kala dhaxmarisay Soomaaliya iyo Somaliland haddaba maxay ka dhigan tahay tani waa maxayna macnaha xariiqada go'aani ay leedahay marka la joogo maabka dhexdiisa marka maadaama juqraafi nahay xogaa baan idin sharaxina marka laga soo tago qadiyada go'aansitaanka ee Somaliland xuduudaha caalamka laba ay u qaybsamaan kuwa rasmi ah oo la aqoonsan yahay kuwaas oo lagu muujiyo xariiradaha iyadoo la adeegsanayo line dhammaystiran sida ay hadda aragtaan iyo xuduudo muran ku jiro ama aan rasmi ahayn waana kuwa lagu muujiyo xariiqahan go'aan ama dhibicda ah Soomaaliya waxay xuduud rasmi ah la wadaagtaa dalka Djibouti sida awgeed Google wuxuu ku muujiyay xuduudaasi line dhammaystiran sidoo kale Soomaaliya waxay xuduud aan rasmi ahayn la wadaagtaa dhulka gumeysiga ku jira ee Soomaali galbeed xuduudaas Google waxa uu ku muujiyaa line aan dhammaystirnayn waana sababta badanka aad u aragto in xuduudda ay Itoobiyaanku sheegtaan ay leeyihiin line go'aan oo aan dhammaystirnayn aynu u soo laaban arinta Somaliland xariiqadani waa mid ay ku doodo Somaliland laakiin waaqicu waa in dhulkan ay ka taliyaan 3 maamul oo kala duwan sheegashada dawladda waqooyiga ka jirtana ay ka dhigaysa rajo iyo riyo u baahan rumayn iyo sheegasho dhul dad iyo dawlado kale ay ka taliyaan dhulkan ay sheeganayso Somaliland ee Google kuna u aqoonsaday waxa daga qabiilo kala duwan oo Soomaaliyeed maamulka Somaliland waxa uu ka taliyaa qiyaastii 50% dhulkan uu sheeganayo tani ayaa line-kan go'aan ka dhigaysa qorotay kale qaado ninka Somaliland ayaa ku doodaysa in xuduudani ay tahay midkii isticmaalka Ingiriisku uga tagay ayna iyagu xaq u leeyihiin maadaama dalalka iyo nidaamka Afrika uu ku dhisan yahay xuduudihii isticmaalku ka tagay u garqaadida waaqica iyo rabitaanka Somaliland waxa uu u keenayaa sida Soomaalida doonaysa dib u helidda dhulkii Soomaali galbeed oo noqonaysa xuduud hal dhinac xuduudda ay rabto Somaliland waxay gudaha u soo galaysaa maamulka Puntland oo isagu ah maamul iyo deegaano aysan waligood Somaliland ka talin iman ama u soo dhawaanba waxa kale oo dhulkaasi daboolaya dhammaan dhulka maamulka urdanka ah ee waqooyi bari Soomaaliya gunti iyo gunaanadka Google ma aqoonsado dalal mana aha xarun ictiraafsiisa dalal waa shirkad muujisa waaqic muujintan cusub ee qaarada toddobada ahna waxay la mid noqon muujinta dhulka gumeystaha ishala ee Itoobiyaanku inaga haysto sida wiilka shilaaba jooga uusan u aaminsanayn xuduudda taalla dawladka Galdogob ayuusan wiilka buuhooda joogana u aaminsanayn xuduudda taalla yoocada Google kana intaas ayuun buu muujiyay ee dal Somaliland la yiraahdo ma ictiraaf